Jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka ayaa munaasabada sanad guurada 28aad ee maalinta 18 May kulan afur sharafeed ah bulshada reer Somaliland ugu sameeyay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen badi haldoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa goobta khudbado taabanaya taariikhda maalmihii halganka ka jeediyay mas'uuliyiin ka kala socday saddexda xisbi qaran mas'uuliyiinta ururada bulshada madaxda jaaliyadda Somaliland iyo wakiilka Somaliland ee dalka Jarmalka. maan marti sharafta halkan fadhida oo ugu horeeyo safiirka Jarmalka ee Somaliland gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiye ku-xigeenka ururada madaxa bannaan saddexda xisbi qaran oo isku duuban dhammaan shacabweynaha Somaliland ee halkan fadhiya intayna gobolada jaarka inooga timid ayna soo booqatay intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin waanan idinku hambaliyeynayaa 18 guurada ka soo wareegtay 18 guurada ka soo wareegtay maalintii qarannimada Somaliland xornimadeeda ay dib u soo noqonay inta badan marka laga hadlayo 18 May laba qodob baan ku soo koobayaa maadaama waqtigu inagu yar yahay waxa xoog la saaraa halgaamayaashii wayna tahay runtii in xoog la saaro laakiinse midhihii laga gurtay ee ay dhaliyeen ayaa iyaduna ay tahay inaynu ogaano oo aynu idhaahno yaa midhihii ay dhaliyeen raggu ay u dhinteen dhiigooga ay u shubeen yaa gurtay farxad bay tahay maanta waa farxad weyn meel kastoon joogno waxaan ku ciidaynaa 18 May aad baan ugu faraxsanahay idinkuna waxaan maleynayaa inaad faraxsantihiin waxaan idin leeyahay hambalyo marka xiga waxaan doonayaa waa mahadsan tahay marka xiga waxaan doonayaa laba kalmadood inaan ka idhaahdo oo midina ay tahay fariin midina ay tahay dardaaran ta dardaaranka ay dambayso ta fariinta ay waxa weeyaan dad baynu nahay ehel baynu nahay walaalaynu nahay sokeeyaynu nahay saaxiib baynu nahay meelna laguma kala tagayo wixii carqalad ama dhibaato ah dhexdeena hoos loo xalliyo qof kasta oo arrintaasi khusayso haddii dawlad tahay iyo haddii jaaliyad tahay waxa la hoos loo xalliyo keena jaaliyadda Soomaaliland waxaan aad ugu hambaliyeynayaa inamada firfircoon maalintii waan ka cudur daaranayaa maan imanin lagu dhigay maxamed Axmed Saalax la dooranayay gudoomiye Mustafa uu wareejinayay run ahaantii maanta waxaan aragnaa inay aad iyo aad sheekad u socoto dhamaantood marka waxaan leeyahay inamada jaaliyadda ee cusub Axmed Saalax Cabdinaasir ku-xigeenkiya safiirkii Cabdifataax gudoomiye hore wareejiyay isaguna si xil oo wanaagsan u wareejiyay dhammaan waxaan leeyahay inta aan ka tagayba xoghayaasha iyo dhammaan garbiyada haweenkaba waan wada salaamay aniga oo ku hadlaya afka xisbiga wadani gudoomiyaha garabka haweenka waan qiimaha badan leh aad baan u salaamayaa ay ugu horeeyaan gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Germany iyo ambassadorka guud ee Somaliland Cabdifataax iyo Axmed Saalax iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan marti sharafka kale ururka Soonyo gudoomiyahoodii iyo ururka iyo saddexda xisbi dhammaan iyo marti sharafta kale aad baan u wada salaamayaa gabagabadii waxa munaasabada soo afmeeray gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka Axmed Saalax Cabdi iyo wakiilka Somaliland ee dalka Jarmalka ambassador Cabdifataax Ismaan Cigaal waxa inaga inoo farxada inaynu maanta isugu nimaadnay munaasabad afura inagoo Ramadaan ku jirna oo sooman oo cibaadeysanayna inaynu xusno maalinteena qaranka munaasabadan waxay noo suuro geliyay aanu mahadnaqaynaa hableena reer Somaliland quruxda badan ee noo soo agaasimay waxaan oo kale sidoo kale iyadana halkan maxaadin ugu jeedinaynaa dhammaan dadka jaaliyadda la shaqeeyay oo ka mid xubnaha waxaan halkan fariin kaga faa'iideysanayaa maadaama ay tahay jaaliyaddan jaaliyad cusub aan hadda soo dhisnay inaad insha Allah nala shaqeysaan sidaan hore u sheegay maalintii hore sidaad noola shaqeysaan u baan naga muuqan doonta innagana dhammaanteen waxtar inoo wada noqon doonta waxaan ku faraxsanahay inaad kala soo qayb galo munaasabadan quruxda badan waxaan ku faraxsanahay inaad kala soo qayb galo xuskan ka duwan xusaskii hore aynu qaban jirnay waxaynu ogsoonahay waxaynu u baahannahay inaynu qarankeena marka aynu ka shaqaynayno si ka duwan siyaabihii hore aynu maanta u bilowno aynu uga shaqayno waxaynu 28 sano aynu u ordaynay waxa weeye inaynu ka helno caalamka ictiraaf haddii sidii hore aynu u shaqaynaynay aan u shaqayno waxa hubaala inayna wax badan qabsoomay Sakariya Jailani Zab TV wararka dalka Jarmalka